I work in the library on Main Street. waxaan ka shaqeeyaa maktabadda ku taalo Main Street. wadada Main Street loo yaqaano, wadadaasi maktabadda ku taalo ayaan ka shaqeeyaa. markuu ku yahay the library, markuu ku dhahayo maktabadda wadadaas ku taalo Main Street-ka library ku yaalo, qofka hadlayo iyo qofka dhageysanayo labaduba waa isla yaqaanaan. maktabadda ayaa noqonaysaa maktabadda ama library-ga ayay noqonaysaa. Soomaaligana waa qabnaa, ka ayaa raacinaa ama ta ayaa raacinaa markuu sheyga cayiman yahay. Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada casharkeena maanta. korsoon oo dhammaystiran haddii aad doonayso fadlan soo dejiso applicationka wax ka baro. wixii su-aalana qaybta commentiga nagu soo weydii, pagekana like saaro, subscribe-na youtube-ka dhaho si ay mar walba casharadu ay ku soo gaaraan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. koorsadeeni englishka ahayd ayaa inoo socoto. cashirkii 12aad ayaa wadnaa. cashirkan waa xogaa yar sharci weeya, waa cashir yar oo grammar ah waaye. wax yar hadda ka hor waan ka taabanay, haddana si fiican ayaan u faahfaahinaynaa. waxaan naqaanaa a iyo an waan naqaanaa soo maahan, laakiin waxaa nagu cusub the ayaa nagu cusub. marka sharcigaasi ayaan rabnaa inaan barano hadduu ilaahay ka raali noqdo. waa cashirkii 12aad koorsadeeni English Inside Out ee buugga koorsada, buugga maxaa la dhahay level 1ka. marka waxaan dhahnay use the definite article or indefinite article a and an. definite article the ayaa loola jeedaa. definite article the or indefinite articles a and n to talk about things in a specific or general terms. waxaad isticmaashaa lagu dhahay xarafka the oo loo yaqaano definite article iyo indefinite article oo ah a iyo an ah, adigoo markaad ka hadlayso waxyaabaha ashyaada ka hadlayso in a specific or in general terms. markaad si gaar uga hadlayso ama markaad si caam uga hadlayso. marka definite ergas waa waxawaaye waa wax cayiman waaye oo specific ah. indefinite waxawaaye waxaan specific ahayn ama general ah ama caam ah. marka waxaan dhahnay the marka waxaa loogu talagalay inaan u adeegsano waxa khaaska ah, waxa khaaska ah oo la ogyahay waxna aan ku darsoomeynin. a iyo anna waxa wixii generalka ama caamka ah ayaa loogu talagalay. marka general terms waxaan u isticmaalnaa dhahnay a iyo an. a iyo an farqiga u dhaxeeyana waa naqaanaa, waan soo baranay. a waxaan u isticmaalnaa dhahnay magacyada ka bilaabanayo maxaa la dhahay consonantska. anna waxaan u isticmaalnaa dhahnay magacyada ka bilaabanayo vowelska. vowel iyo consonant in farqiga u dhaxeeya waa naqaanaa. haddaan idin xasuusiyo vowel waxaa la dhahaa xarfaha a b a iyo e iyo o iyo u waa shaqalka, xarfaha shaqalka. consonantigana waxaa la dhahaa xarfaha shibanaha ah. use some, okay, some to talk about more than one thing. ereyga somena waxaad u isticmaali kartaa markaa rabti inaad ka hadasho wixii hal shay ka badan. taasna waa fahantay inaan rajeynaya. use a for things in general, okay, ujeeda eeda waxaad u isticmaashaa iyo antaba waxaad u isticmaashaa waxyaabaha generalka si general uga hadlaysid. use the for places, person or things that you and the listener both know about. xarafka da'na waxaad u isticmaashaa sida meelaha oo kale, meel oo kale ama qof oo kale ama shay aad adiga iyo qofka aad la hadlaysa ee ku dhageysanayo aad wada ogtihiin. meel aad wada ogtahay, meel aad wada ogtihiin adigana ogtahay qofkana og yahay, ama qof adiga aad ogtahay asagana oo og yahay. micnaha qof aad labadiina wada ogtihiin ama shay qaas ah ama qof qaas ah aad ogtihiin, ama wax walbo qaas ah oo adiga iyo qofka ku dhageysanayo wada og yihiin, ama shay wada qaas oo adduunka oo dhan qaas u ah sida qoraxda oo kale. tusaale marka wuxuu yiri meeshaan I work in library. I work in library, in a library. library ayaan ka shaqeeyaa. marka I work in a library. ereyga library waa xawaaye waa magac waaye. library waa maktabad. maktabad ayaan ka shaqeeyaa qofka ku yiri, laakiin ma cayino maktabada uu ka shaqeeyo. magacna uma yeelin,
wax kale kuma sameynin qofka intee ka shaqeysa ayaa dhahday maktabad ayaa ka shaqeeya ayuu ku yiri maktabadda ay tahay ma garanaysid adiga laakiin hadduu ku dhaho I work in the library on Main Street waxaan ka shaqeeyaa maktabadda ku taalo Main Street wadada Main Street loo yaqaano wadadaasi maktabadda ku taalo ayaan ka shaqeeyaa markuu ku yahay the library markuu ku dhahayo maktabadda wadadaas ku taalo Main Street-ka library ku yaalo qofka hadlayo iyo qofka dhageysanayo labaduba waa isla yaqaanaan maktabadda ayaa noqonaysaa maktabadda ama library-ga ayay noqonaysaa Soomaaligana waa qabnaa ka ayaa raacinaa ama ta ayaa raacinaa markuu sheyga cayiman yahay laakiin marka hore waxaan dhahnaa waxaan ka shaqeeyaa maktabad laakiin hadda waxaan ka shaqeeyaa maktabadda ama library-ga Main Street ku yaalo marka waa ujeedaa sheegii waa shay cayiman oo qaas aan dadka kale ku darsameynin ama library-yada kale ku darsameynin waa cayintay laakiin markaad dhahdid I work in a library ma cayino library-ga doono ayuu noqon karaa waad fahanteen aan rajeynayaa taas okay waxaa kaloo noogu xigo tusaalaha kale Jim is an artist Jim waa artiste okay Jim is an artist kan da ma soo geli karto marnaba Jim is the artist ma dhihi kartid waa dhihi kartaa markay lagu weydiiyo laakiin lagu dhaho kale who's the artist of this writing macnaha sawir ayaa lagu tusay who's the artist of this ayaa lagu dhahaa ama sawirkan yaa waay artistihiisa ama gurigan artistihiisa yaa waay haddii lagu dhaho kale markaasoo kale waa dhihi kartaa Jim is the artist waa dhihi kartaa laakiin haddii oodan waxba qaas aadan sheegaynin Jim is an artist ayuu noqonayaa okay su-aashuna waa soo geli kartaa ayadana su-aal markaa isticmaalaysid is there a bank near me banki meelahan ma ka dhow yahay is there a bank marka banki gaar ah ma raadinaysid is there a bank near me meeshan bank ma ka dhow yahay waa bangi oo doono noqon karaa okay the doctor at my hospital is good dhakhtarka aan joogo isbitaalkeena ama isbitaalkayga wuu wanaagsan yahay marka hadda way cayiman tahay dhakhtar oo dhan lagama hadlayo waa midka kaliya ee joogo isbitaalka aan ka hadlayno oo ah isbitaalkayga midka kaliya ee joogo waa mid wanaagsan the doctor oo noqonaa haddii laakiin arabtid aad dhahdid inaa si kale haddii arabtid inaa udhigtid oo kale oo aad dhahdid oo kale is there a good doctor is there a good doctor doctor wanaagsan ma jooga markaas ma cayimaysa laakiin hadda way cayiman tahay the doctor waa midka isbitaalka joogo waa wanaagsan yahay I go to the bank on Broad Street waxaan aadaa ama lacag ka doontaa bangiga ku yaalo Broad Street wadada Broad Street bangiga ku yaalo ayaan lacag ka doontaa marka sheyga haddii la cayimo oo meel loo yeelo ama cayimaad loo sameeyo mar walbo waxaad qaadanaysaa the ayaa qaadanaysaa hadduusan sheyga cayinene ama ayaa siinaysaa ama an ayaa raacinaysaa intaas waa fahanteen aan rajeynaa tusaale kale kuu soo qabanaya isbitaal ayaad booqatay waad xanuunsan tahay kadibna qof ayaa la kulantay markaas waxaa dhahday I want to see a doctor waxaa rabaa inaan doctor arko marka waxaa dhahday I want to see a doctor ayaa rabaa inaan arko ayaa soo gelisay markaasi adiga doctorka aad rabtid inaad aragtid ma garanaysid waa mid aan any doctor ayaa doctorkoo doono ayuu noqon karaa mid un ayaa rabta adiga inaad aragtid okay marka wax yar fariisaa lagu dhahay marka have a seat a doctor will attend to you wax yar kadib doctor ayaa kuu imaan doono marka waxaa lagu dhahay have a seat a doctor will attend to you doctor ayaa kuu imaan doono macnaha marka asagana laguma cayimin doctorka kuu imaan doono marka meesha cabaar fadhisa wax yar kadib kusoo laabatay waxaa dhahday where is the doctor waa doctorkii uu ku imaan waayay kadib waxaa dhahday where is the doctor muxuu noqday aaway dhakhtarkii kii aan aniga sugaayay dhakhtarkii aan iga ballan qaaday aaway marka hore wuxuu ahaa midaa cayineen waa lagu ballan qaaday meelaa lagu fariisiiyey marka ballanqaadkii adoo ku fadhiyo markaad kusoo laabato aaway dhakhtarkii aad ii ballan qaatay ayuu noqonayaa marka waad dareemi kartaa marka sheyga cayinto oo qaas yahay the ayay noqonaysaa markaada cayimin oo caam yahay oo general yahayna waxaad siinaysaa a ama an adigoo mar walba ka tix raacayo xarafka uu ka bilaabanayo hadduu consonant yahayna waa a hadduu fowl yahayna waa maxaanane taas adinka idinkala waa kama dhamaystirayo okay
cashirka marka hal qayb yar ayaa iga dhiman some ayaa iga dhiman si loo isticmaalo waan masaxayaa some ayaa sharxayaa kadibna exercise ayaa idin yaalo hadduu ilaahay ka raali noqdo okay cashirkan qaybtan dambena waxay ku saabsan tahay some waxaa lagu dhahay you can only use a and an for singular nouns. You can only use a and an for singular nouns. A iyo an waxaad u isticmaali kartaa oo keliya magacyada singularka. Dadka carabi yaqaano way dareemi karaan mufrad names. Maxaa la dhahay? Mufrad shayga halka ah. Okay. Use some for plural nouns. Some-na u isticmaal wixii plural ah ama wixii jamac ah ama wixii badan. There is a hotel in the town. Hotel ayaa ku yaalo magaalka. Markii la dhaho there is a hotel, markii lagu dhaho there is a hotel in the town, markii lagu dhaho macnaheedu marka waa hal hotel oo kaliya ayaa magaalka ku yaalo. Macnaha halkaas hotel oo kaliya ayaa magaalka ku yaalo. There is a hotel in the town. Okay. Haddii hoteelo badan ku yaalaan maxaa sameynaysaa? Waxaa leedahay there are some hotels in the town. There are some hotels in the town. Hoteelo badan ayaa ku yaala ama xoogay hoteelo ayaa ku yaala. Some marka wax xoogaa yar waay ma badno. A lot ma ahan ama many ma ahan. Waa some xoogaa yar waay. Some hotels in the town. Marka ujeeda maxaa isticmaalay? R ayaa isticmaalay. R maxaa dhahay? Waa verb to be waaye oo u taagan plural. Marka plural a meesha soo gasho verb to be wuxuu noqonayaa R ayuu noqonayaa. Markuu singular yahayna is ayuu ahaanayaa. Waad fahanteen rajaynaya. There is a hotel in the town. There are some hotels in the town. Okay. Give me some water. Biyo isii. Xoogaa yaroo biyo isii. Waay marka kan aan ugu soo darsaday. Waxaa ugu soo daray water shaygaani iyo waxyaabo badan magacyo badan oo noo soo socdo. Waxaa waaye magacyadu aanan kala soocmayn, magacyada aan plural yeelan karin. Dabeecadooda ayay plural u yihiin oo marka hore singular ma lahan. Biyo kale waa dabiici. Sidooda biyo mar walba waxa waaye plural jamaci mufrad ma kala lahaan karaan. Markaasoo kale waxaa loo qaadanayaa inay yihiin plural ay yihiin balse s ma raacayso. Marnaba ma dhihi kartid waters ma dhihi kartid. Waters waxaad u isticmaali kartaa oo kaliya mararka qaar badaha ayaa u isticmaali kartaa. Badaha oo kale markaad dhehayso oceans oo kale markaad dhehayso kale Somali waters oo kale waa dhihi kartaa biyaha Soomaaliya oo kale. Marka Soomaaliya laba xeeb ayay leedahay. Midda ma taqaanaa badweynta India iyo badweynta kale oo cas badda cas. Markaasoo kale Somali waters way dhihi karaan dawladaha iyo dadkaas oo kale. Laakiin sida caadiga marka biyaha caadiga aad ula jeedid water ayaa leedahay. Give me some water. Biyo isii. Marka waxaan rajeynayaa inaad samna fahanteen. Exercise-kii ayaa idin dirayaa. Kadibna waan ku kala baxeenaa. Okay, marka waxaad ka soo shaqeynaysaan exercise 22.3 oo ah cross out the incorrect words in each sentences. Tirtir ama calaamaday ama ka reeb erayga meesha ku qaldan. Tusaale ahaan marka waxaa lagu siiyey Charlotte is a an iyo the ayaa lagu siiyey. Mid sax dooraa lagu dhahay marka waxaa lagu dhahay Charlotte is a an iyo the ayaa lagu dhahay. Kadibna waxaa lagu raaciyay actress. Charlotte is a so midka saxda ayaa reebanaysaa inta kale waa iska tiraysaa. Charlotte is a actress, is an actress, is the actress. Teebaa sax ee marka waxay la mid tahay midii halkan kusoo qaadanay ee ahayd Jim is an artist ayaa la mid tahay. Waa marka waa si general ah waaye kana waa si general laguma sii cayimin. Marka magacan waxaa fiirinaysaa muxuu ka bilowdaa xarafka ordo marka hore da ma qaadanayso maadaama ay general ay tahay. Magacuna wuxuu ka bilowdaa a ayuu ka bilowdaa. A marka macnaheedu waxaa dhahnaa foul waa. Foulna maxaa qaato? An ayaa qaadato. Marka sidaas daraateed
and waa iska tirtireynaa. Charlotte is an actor. waad fahanteen aan rajeynaya. Okay, waxaa kaloo kasoo shaqeynaysaa ayadane 22.4 oo ah 22.6 aa ula jeedaa, sorry, 22.6 22.6 oo ah ayadana meelaha banaan buuxi a iyo sum ku buuxi, ama a ku buuxi ama sum ku buuxi, iyo 22.7 oo adigana aad dhehaysid rewrite the sentences correcting the errors. jumlooyinkan dib u qor adigoo qaladka ku jiro saxayo. qalad ayaa ku jiro, marka qaladkaas inaad ogaato ayaa rabtaa. meel aan r ku habooneen ama meel aan is ku habooneen ayaa la soo geliyey, inaad saxdo ayaa lagaa rabaa, kadibna aad ka soo saarto hadal sax ah. Okay, maxaa kaloo ii hara marka? waxaa kaloo kasoo shaqaysaan okay 22.10 kasoo shaqeey, asagana wuu iska fudud yahay, jumlada qaldan tirtir waaye. iyo waxaa kaloo kasoo shaqeynaysaan 22.11 oo ah asagana erayadan isku hagaaji, kadibna jumlo saxa ay kasoo saar. Okay, marka halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.